suudka sahashawa sahanka nolosha ma la socotaa sahanka nolosha haddii aad sheegtay qaybtii ugu dambaysay halkan waxaan ku soo koobnay wixii dhacay si aad ula socoto dhacdooyinka ugu xiisaha badan waa sahanka nolosha qaybtii 9aad halqada 8aad sahanka nolosha colaad ayaa si qarsoodiya ugu shaqaynaya doomi kalluumaysi wuxuuna wajahayaa hanjabaado kaga imaanaya doomi kalluumaysi oo ajnabi ah rasaas ayaa bilaabatay intuu warbixinta siinayay samsam أوفا 8-8-3 ما مقشا هلي ما مقشا سواناكسن زمزم waayahay xaaladda ka sheekeeyo halka aad ku sugan tahay hadda xaaladdu waa sidee waan fiicanahay doonideeda ayaan geeska uga fadhiyaa waxaan ku suganahay gudaha badda xaalkaygu waa mid wanaagsan wax yar isug waxaa soo socda oo ii soo dhowaanaya dooni kalluumaysi oo weyn oo jariif leh waryaa ninkaaga doonida xun wato ka dhaqaaq meeshan dhaqso ka fogow waryaa ma inaan ku burburinayaa doonaysaa waxba maqashid miyaa haddii kale dan ayaad uga tegaysaa colaad waxaad isu diyaarisaa inaad xeebta xaggeeda aadid si aadan halis u gelin may maqashaa halow colaad may maqashaa aamine iyo dirir ayaa dib u eegaya dakhligooda waxayna ka welwelsan yihiin xaaladooda dhaqaale maadaama kalluunka la heli karo uu sii yaraanayo bishaan kalluunkii aan kuu keenay waa kuwaan halkan ayay ku qoran yihiin waa meeqa intaa 24 ku dar intaan dirirow waa kan aniga meeshaan ayaan ku wada qoray wixii aad ii keentay oo kalluuna bishaani oo dhan ma u jeedaa waan arkaa aamina waxa aniga aan la yaabanahay ayaa waxay tahay xisaabta bishaan kalluunka aan iibiyey maba dhici karto waa sidee xaalka waa wax jira waxa aad ka hadlayso waxaan filayaa inay tahay hoos u dhaca kalluunka ee bishan aad iibisay haa wax aan ka hadlayo waa kalluunka aan iibiyey bishani wax faa'iidaana ma lahan wixii aan iibin jiray marka la barbar dhigo intaan ka badan dhibaatana lama xamili karo waa uun in si wada jira wax looga qabto arrintan xaajo kasta xal ayay leedahay waxaan rajaynayaa in xalkeeda si degdeg ah loo helo taliya tawakal ayaa ku bogaadinaya kooxda dadaalkooda xasan ayaa si gaara u raaligelinaya samsam wuxuuna ku dhiirigelinayaa inay cosato jagada ku-xigeenka taliyaha ilaalada xeebaha waxaan doonayaa in aan ugu hambaliyeeyo kooxdiinnan dadaalkii aad samayseen ee xog ururinta qiimaha badnayd hambalyo ayaan idin leeyahay hambalyo sidoo kale waxaad samayseen howlgal aad muhiim noogu ah oo aannu u baahnayn taasoo fududaynaysa inaan gaarno ujeedkeenna ah in aan helno xog saxa oo lagu kalsoonaan karo ma fahanteen waa fahmi taliya waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo colaad iyo kalluumaysatadii saakay la kallahay oo si nabad ah ku soo laabtay taasina waa guul zamzamey waxaan ka xumahay asbuucyadii la soo dhaafay sidii xumeed ee aan kuula dhaqmay waxaana doonayaa inaan kaa raalligeliyo fadlan iga oggolow raaligelinta aan kuu wada maanta dhib ma laha kabtan xasan waxaas waa caadi waana qaatay raaligelintaada waadna mahadsan tahay run ahaantii waxaan qirayaa inaan dareemay kalsooni darro aad u weyn kadib markii qof cusub oo muqdisho ka yimid uu soo jeediyey isbeddello anigu aan ku tala jirin waan qaatay raaligelintaas kabtan xasan waxaan kula talinayaa inaad codsatid xilka taliya ku-xigeenka ilaalada xeebaha daaqsan waayo waxaad tahay musharax u qalma xilkaasi oo ku habboon haddii aad hanatana waan hubaa inaad ka soo dhalaalayso mukhtaar ayaa muujinaya dabiciisa inuu noqdo hogaamiyaha ugu awoodda badan burcadbadeedda isagoo si dadban u sheegaya inuu ka aargudan doono kuwii qiyaamay mar dhow waxaan doonayaa inaan dib u bilaabo hawlihii burcadbadeednimada waad u jeeddaa dhulkan siduu u dahan yahay waa in shaqo weyn aan ka qabtaa waan gartay hawlaha burcadbadeednimada ayaan dib u soo noolaynayaa waxaan gelinayaa juhdi badan si deegaankan oo dhan la igaga daba hadlin wax kasta oo looga baahan yahay aniga la ii soo daba fadhiisto waxay u baahan tahay taasi dhaqaale xoog leh iyo abaabul weyn sowmaha mukhtaaro haa waa loo helayaa dhaqaale howlahaas ku filan rag ayaa diyaar u ah inay maalgeliyaan mashaariicda burcadbadeednimada oo waxay u arkaan fursad saaxiib aniga halkan hiigsanaya ma dhowa hadda waxaan wadaa wadahadallo aan la leeyahay hoggaamiye kale oo burcadbadeed si aan u midowno una ballaarinno howlgalladeenna ha moogaanin qaybaha xiisaha le ee xiga ee sahanka nolosha waxaad ka dhegaysan kartaa jimco kasta 2:00 galabnimo idaacadaha raadiyow shabeelle 101.5 FM SBC raadiyow 89.9 FM raadiyow kismaayo 90.0 FM iyo HBC raadiyow hobyo 90.0 FM waxaa kale oo aad halqadaha ka dhegaysan kartaa boggeenna facebooka la soco sahanka nolosha si aad ula socoto dhacdooyinka ugu dambeeya